kan waxaan ku arkaynaa ciidankii maaragtay na saguutin hayay waa naftooriga ugu horreeyey laba maalmood kadib markaan boorsooyinkoodii qaadan kari weyne wataa boorsadaydii halka gabadhaas ubax la yidhaahdaa wadda gabadhan kalena tii xirsi bay waddaa isaguna dee waad arkaysaan naftooriyaashii waa kuwankada odayga xirsihana waa ka dhulkan doolaa la yidhaahdaa laba maalmood iyo laba habeen ayaanu maaragtay soo soconnay kolkaa hadda dheer baan ugu jirnaa waa dhul aad iyo aad maaragtay yaab u leh oo dhurta halkan xagarey baa la yidhaahdaa xirsi baa halkaa taagan oo maaragtay intaa igu daray halkan waad aragtaa iyagii oo socda oo kuwaa halkaasi kasii baxayaan gabadhan ubax baa la yidhaahdaa ubax baa la yidhaahdaa waa gabdhaha xagarey markii horena waxay noo sheegtay inay reer ciideed ay ahayd ubax maxaad maalin dhibkan kada iyo rafaadkan iyo socodkan aad ku mudatay ma nooga jawaabi kartaa haye kor u qaad codka aad ugu jirtaa okay axmaaradu wax dhibaato oo ay kuu geysatay ma jirtaa mise waxaad adigu la kulantay haye adigana magacaa walaal haye foos maaragtay maxaad dhibkan iyo rafaadkan kada saacadantada oo hadda kulayl ah oo 11 iyo badhkii ah aad rafaadkan ugu jirtaa okay wax dhibaato maxay ka mid ah dhibaatadaas haye maysiga dhibkaana waxayaan iyo xilliga u roonahon halkan ka ugu jirnaa maxaa ka mid ah dhibaatada ood aragtay ma aabbahaa buu dilay ma hooyadaa buu dilay ma hooyadu kusaday maxaad la kulantay wana kusaday wuna la yaabaanay hooyadana ugu dilay wiilashanadina u wada laayay anagana wuna kusaday wuna na dilay imise jir baa tahay foos aniga sideed iyo toban jir okay ubax adigu imise jir baa tahay 17 maxaad kula dardaarmi lahayd gabdhaha da'daada ee 17 jirka ah ee Yurub iyo Ameerika iyo Australia iyo jooga maxaad oran lahayd eed wada dhalateen maxaad kula dardaarmi lahayd eed wada dhalateen ee iyagu nasiib u yeeshay in ay Ameerika iyo Yurub iyo Australia iyo qaaradahaas ay joogaan oo biyaha qabow maanta cabahaya aduguna hadda oon aad u rafaadsan tahay annaguna carabkii iyo isku dhigay maxaad oran lahayd waxaan hadda maqlahay in tuuladii danood sekada dhan ay wayaanuhu gubeen xalayna waxaa la ii sheegayay nin reer baadi ah gurigiisa oo dhan iyo waxa la wixii maaragtay ku jiray la gubay adigu ma la kulantay dhibaatooyinkaas waxaad ka maqashay waa ninka guriga laga gudo Ismaan waad mahadsan tahay foos mana aragtaa haye haye magasi daya hay sabxa taaban iyo socod ku hay dadka hay soo socod waa aad baan u daalanahay waan rafaadsanahay oon baan nahay laba maalmood yaan soo soconay habeen haye ka dhib badan baan nahay aduu hadda mushkiladaas iyo rafaadkaas waan ogaadeen iyo darteedan baan u galeynaa marka naftii hore dee aduguna dee naftaadii iyo qoriga waxaad u qaadayba waa midaas hawl kale toon u soconaa ma jirto shaqadan baa inoo kala duwan halkan waxaan ku aragnaa geedii
واتن سك geedi kashiida ahayd waa khayr bay noo tahay waa taas khayr bay noo tahay waa wadani in la taabto moo gelin wataa hadda sii baxday xaggaasi aaday halkan waa naftood horeyaashii oo halkan taagan waa maalinkii saddexaad ee aanu hayaanka ku jirnay dhul isuma dhowa ciriya dhul kale fog meesha aanu marayna daya dhulku waabad yaabiba ahey waxaa la yidhaahdaa xidh xas keliyaa la dhahaa xas badbaado bartaasaanu dhex maraynaa hadda saacaddu waa 8:00 shantii baanu soo kacnay war xirsiyow maxaad odhan lahayd ma isjeexday adugu wallaahi anugu waa kaasoo beekiyo enganganaato haye haye laakiin waxaan ku faraxsanahay inaan ogaado in bartankeedii joogo haye oo hadda xiriirka ka sii haye kuna aadana dhanka iyo bannaan haye dhulkii la baxay gartay meeshan geeldiiska la dhaxay geeldidiska gartay naag meel yiraahdo hadda yaa nagu dhow iyo mataqaana meel yiraahdo dunaasana iyo aduu meelahaasaan marayna oo maxaa dhacay macaws baad qabtaa keligaa macawsta sarwaalkii baa gooyay ma ilaahan kugu dhaari wallaahi waa akbar soo bilownay bisha labadeedii nasiib wanaag wuxuu ilaahay maanta na hor keenay ciidankii xoreynta Ogaadeniya oo halkan kada fallaadh ka mid ah marka waa ilaahay maxay wali hadda intaa maaragtay idin nasiib karayo laakiin annagu safarkaanagi waan ka kulannay ciidankii halkan waxaa ka soo socda fallaadhii ciidanka xoreynta Ogaadeniya ee aaggan aan ugu nimid marka waa iyagii oo hadda hawlgal u socda halkan ayaad maaragtay ka arki kartaan isas wada daba socdaan waqti hore walba waa kan waa gabadh weeyaan